waxaan kelmadii aan oran lahaa runtii waxa wasiirka u dambeeyay hadda baa yidhi wixii la oran lahaa waa saaxiibadii iga horreysay oo dhan baa yidhi laakiin intii aan isu soo taagay waa intan hadda wasiirku uu yidhi oo ay ugu muhiimsan tahay wada shaqaynta iyo sidaa maanta looga soo wada qayb galay inay ahaato had iyo goraale aynu u wada shaqayno waayo nafaqa darradu waa wada ognahay waxaan oran karaa dee ummadoo dhami waa ummadoo dhami caruur weeye marka ummadoo dhan baa maxay tahay inaynu u wada shaqayno oo ka wada shaqayno baa muhiimaddu ina siinaysaa haddii aan caruuri jirin ummadaba ma jirteen oo qof walba oo weyn iyo mid kastoo magac leh iyo mid kastoo maxay tahay maqaam meel soo gaadhayba wuxuu ilmo yar buu soo maray in nafaqa darrada lala dagaalamana waajib bay inugu tahay especially UN-ka iyo hay-adaha kale iyo adduunka oo dhamiba sidaa laajlee maanta waxaan ku kalsoonahay oo runtii aan ugu kalsoonahay sida aynu maanta uga soo qayb gallay inaynu gacmaha isu wada qabsanno oo aynu maxay ahatay waxaa kale oo inaynu wakti gelinno sidii aynu dhaqaale ugu samayn lahayn oo qolo cid waliba maxay ahatay geeskeeda u qaban lahayd waxaan kale oo aynu sagootiyeynaa sanadkii 2019 oo waxaynu kale u diyaar garoobeynaa iyana sanadka inagu soo socda oo insha allah uu noqon doono mid kan aynu hadda ina dhaafay ka sii wanaagsanaada waayo kan qudhiisu ma xumayn meel fiican baynu hadda marinaynaa bilowgaa sanadka cusub ee maanta bilaabmaya oo aan qabo beri ama saa dambe bilaabmaya sida ilaala intaa soo shamirtay ee ka soo qayb gashay saansaankeedaan arkaada wuxuu noqon doonaa sanad aynu gacmaha is wada qabsanno oo runtii ka sii fiicnaada ka waxaan uu ku soo gabagabaynayaa for example in mashruuca ka sun movement waxaa la shaqeeya oo focal points wasaarado badan iyo hay-ado badan baa runtii focal points u ah oo la shaqeeya waxaan codsan lahaa maxay tahay aan ku boorinayaa hay-adaha UN-ka iyo wixii la halmaala inay dhiirigeliyaan shakhsiyaadkaas ama wasaaradaha ama wakaaladaha ama hay-adaha focal point-ka u ah oo aynu maxay tahay la shaqeeya mashruuca kan sanka aada iyo aad baan umahadsan waxaan leeyahay sanad wanaagsan ilaahay sanadka soo socda sanadkiisa kale halagu gaadhsiiyo bashbash iyo barwaaqo aada iyo aad baad u mahadsantihiin waxaan kaga faa'iidaysanayaa halakan inaan ka sheego guddidii kuwa internationalka iyo kuwa localkaba ahayd ee aynu berigii dhoweyd ka howlgallay maxay ahatay roobabkii iyo daadadkii meelihii khasaarayaashii ay geysteen guddidii iyo hay-adihii ka qayb galay aada iyo aad baan ugu mahad celinayaa shaqadii wanaagsanayd ee la qabtay oo ay runtii ugu horeeyaan sida WFP maxay ahatay
UNICEF UN OCHA iyo kuwii kale ee maxay ahayd ka qayb galaba aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa shaqo wanaagsan oo aynu maxay ahayd dheeraada waliba intii aynu rabnay in ka saayid aynu qabanay oo meel walba aynu gaadhsiinay cunto iyo cunto iyo maxay ahayd wixii baahi ahaa aynu kari karaynay in si degdeg loo gaadhsiiyo maalmo yar ka bacdi maalmo yar lagu gaadhsiiyey aad iyo aad bay aan idinku mahadcelinayaa hawl wanaagsan bay ahayd hawl aynu wada jir u qabanay bay ahayd lama ilaawaan weeye insha allahna waxaan rajaynayaa inaan guddida aan faro inaanu isu nimaadno oo ciddii wax qabatay ee mutaystay aynu siino shahaado sharaf